halkani waa warbaahinta GMN ee laanteeda af Soomaaliga. Waxaad nagala socon kartaan barteena Facebook iyo YouTube-ka. Barnaamijka dhaxalka cagaaran oo sanad kasta sii kordhaya wuxuu keenay natiijooyin la taaban karo. Barnaamijka lagu hergelinayo fikirka madamar ama wadajirka ah ee lagu ururinayo awoodaha wuxuuna leeyahay waxtar iyo faa'iidooyin kala duwan. barnaamijkan ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed sanadkii 2011 uu bilaabay maanta wuxuu diiwaangelinayaa natiijooyin waaweyn oo soo jiitay dareenka dunida. Hawshani waxay noqotay dhaqan in lagu beero dhirta marka loo eego deegaan kasta, sidoo kale faa'iidooyin dhaqaale kuwa loogu talagalay kor u qaadista daboolka dhirta ee quruxda magaalooyinka, goobaha nasashada iyo kuwa hoose u dhigay nabaad guurka. Ujeeddada weyn ee barnaamijka dhaxalka cagaaran waa in lagu hergeliyo horumarinta cagaaran ee miyiga iyo magaalada si loogu qabto qaybaha muhiim ah horumarka bulshada iyo dhaqaalaha dalka. barnaamijka raadreebka cagaaran ka hor sanadkii 2010 tiris taariikheedkan Itoobiya, daboolka dhirta ee dalku wuxuu ahaa 17.2%. barnaamijka dhaxalka cagaaran oo halku-dhigiisu yahay 40 geed qofkiiba ee beerinta hal maalin gudaheeda 4.7 milyan oo dhira wuxuu gaarsiiyey daboolka dhirta ah dalkeena 23.6% sanadkii 2016 ee tiris taariikheedkan Itoobiya. tiyada qaaradaha kala duwan uu ku dhibaatoonaya qabow daran, qaar kalena kuleyl daran oo khasaareeyey nolosha caadiga ah. daadad iyo dabka kaymaha waxaa loo aaminsan yahay in mid ka mid ah halka lagu hortagi karo dhibaatooyinkaasi ay tahay ballaaro loo hergeliyo dhaxalka cagaaran sanadihii la soo dhaafay. dadaalka xooggan ee shacabka Itoobiya waxaa lagu beeray in ka badan 48 bilyan oo dhir ah. natiijadan shacabku way arkeen maadaama shacabku uu arkayo barnaamijka dhaxalka cagaaran mid ma ahaan kaliya daryeelka khayraadka, sidoo kale waa arrin lagu xaqiijinayo madax bannaanida dhaqaalaha iyo amniga cuntada. tirada ka qaybgalayaasha iyo dhirta la beerayo waxay sii kordhayeen sanad kasta. faa'iidada barnaamijka dhaxalka cagaaran waa mid la arki karo oo la taaban karo. wuxuu sidoo kale kordhiyey wax soo saarka dhulka. hor barnaamijka dhaxalka cagaaran sanadkii 2010 ee tiris taariikheedkan Itoobiya, midhaha hal hektaar ka soo baxa hektaarkiiba waxay ahaayeen qamadiga 22 kintaal, geleyda ama aroor waxaa ka soo baxi jirtay 30 kintaal, teefigana ilaa 17 kintaal, garowga ama misigadana ilaa 23 kintaal ayaa laga heli jiray. balse barnaamijka markii la hergeliyey wixii ka dambeeyey sanadkii markuu ahaa 2017 waxaa lagu kordhiyey meel hal hektaar ah sarreen 36 kintaal, geleyna 4 kintaal, teefigana 20 kintaal, garowgana 30 kintaal. sidaasi darteeda sanadkii 2017 ee tiris taariikheedka Itoobiya waxaa lagu beeray 7.8 milyan oo hektaar oo midhaha qamadiga, iyadoo la soo saaray 280 milyan oo kintaala. dadaalka weyn ee soo saarista qamadiga wuxuu suurtageliyey in la baajiyo 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ee lacag ahaan oo dibadda ah hore u baxi jirtay. soo dejinta qamadiga dibadaha laga keeno. barnaamijka dhaxalka cagaaran wuxuu ka qayb qaatay horumarinta tacabka miraha. tani waxaa sidoo kale ka qayb qaadanaysa xasilinta suuqyada. ka soko waxay ka caawinaysaa bulshada wax soo saarayaasha in faa'iidooyinka dhaqaale ay kor u qaado.
tani waxay sidoo kale ka dhigtay Itoobiya dalka labaad ee Afrika ugu weyn ee dhoofiya avokadada. Faa'iidada barnaamijka dhaxalka cagaaran waa kuwa dhinacyo badan leh. Marka la barbar dhigo daryeelka nabaad guurka, wuxuuna kordhiyey faa'iidada dhaqaale ee dhinacyada oo dhan. Xoojinta sii socda faa'iidada dhaqaale ee ka timaada dhaxalka cagaaran waxaa ka mid ah wada shaqaynta hay'adaha iyo daryeelka ku habboon ee dhirta la beero xilliga roobka marka uu imaado xilliga jiilaalkaba. Waxay ka mid yihiin hababka mustaqbalka. Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed wuxuu ku dhawaaqay barnaamijka dhaxalka cagaaran ee sanadkan magaalada Bishoftu, iyada oo halku dhig looga dhigay aanu rajo beerno. Munaasabadaasi wuxuu ku soo saaray baaq maadaama in ka badan 8 bilyan oo geed abuur u diyaarsan yihiin beeritaanka xilliga dhaxalka cagaaran ee sanadkan. Dhammaanteena aanu rajo beerno. Muuqda in barnaamijka dhaxalka cagaaran ama raadreebka cagaaran ee dhinacyada kala duwan uu yahay barnaamij uu taagan faa'iidada tooska ee shacabka iyo daryeelka aadanaha. Sidaasi darteeda waxaa lagu dhowraya in bulshadu si firfircoon ay uga qayb qaadanayaan barnaamijkan, iyagoo adeegsanaya fikirkii wadajirka ama madamarka si ay faa'iidooyinka u gaarsiiyaan heerka ugu sarreeya.